tartankan way ka qayb galayaan 94 arday oo ka kala socoto 34 dugsi isla markaana isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa maanta ka furay masaajidka carabta ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. furitaanka tartankan ayaa waxaa ka qayb galay guddiga tartanka culimaaddin macallimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. gudoomiyaha guddiga tartanka Quraanka Kariimka ee magaalada Beledweyne Sheekh Cabdisalaam Salaad Axmed ayaa ka warramaya nuxurka tartankan. sanadkan insha Allah ta'ala صدني أفر دكسي iyo arday ka kala socoto oo 9 iyo 4 arday ah ayaa tartanka ka qayb qaadan doonto insha Allah ta'ala waxayna ku tartami doonaan 3 qaybood oo kala ah quraanka oo dhan quraanka kala barkiisa ama 15 juz iyo quraanka 3 amal markii 3 loo qaybiyo oo 10 juz ah saddexdaas qayb ay insha Allah ta'ala ku tartami doonaan tartankan oo noo furan yahay insha Allah ta'ala maanta oo maalin Arbaca bisha Ramadaan ay tahay 3 aan ku balansanayn ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa ku ahaatay naan isku nimaado noona suurta gasho jawi wanaagsan oo degan oo khayr badan isku nimid insha Allah ta'ala wama tsiin ardada iyo dhammaan macallimiinta soo diyaarisay ardada iyo culimada diinka kulli meesh joogo dhammaantiin waadin mahad celinayaa bacdallah subhanahu wa ta'ala جزاكم الله خيرا ترتكن ونوفر إن شاء الله تعالى. شيخ عبد الناصر شيخ إبراهيم وكمل علماء الدين كمجال Beledweyne ayaa ka warramaya ahmiyadda tartamada noocan oo kala ah. ardayda yarka oo fadhiisa maanta inay ku tasaabaqaan ay ku tartamaan 30 juz ee Quraanka Kariimka ah qaybay Quraanka labadiisa gal kitaabka ay haystaan oo qalbigooda Ilaahay geliyay nicmo weyn ay haystaan waa nash iyo barbaarin iyo korid ay kula koreen macal kitaab in ay laga qayb galo tartamada quraanka oo noocan oo kale faa'iidooyin fara badan iyo fadaa'il badan ay leedahay kuwa waxyaabaha ka dheehanayna waxaa ka mid ah horta inuu ardayga noqdo musaaxib macal kitaab kitaabkii inuu saaxiib leeyahay akhriyo uu ku dadaalo haayo oo juhdi lagula bixiyo معالج يوالد وحبها إلى ذلك سابقا يتطلع القرآن يفائدوك كذا وحكمده للرجالين يكون يشوف يكون ضيدان هو عند ذلك معرض وقت الوضع البلد كبحي هنا يكون ضيدان فائدوك إلى ذلك وحكمده هنا مركز سؤمان آيات آخرين آيات سؤال نبي أنا بشري عليه الصلاة والسلام مجاهد مدارسته إن يسود نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة مركا إن ملائكة دعين ليسو رحمة الله ليسو دبو ليسو dadka tadaarus ku sameeynaya tartankan ayaa sanad kasta loo qabtaa ardayda dugsiyada Quraanka Kariimka ee magaalada Beledweyne iyadoo uu soo maray marxalado kala duwan tan iyo markii uu soo bilowday 26 sano ka hor. Maxamed Cabdisanay Radio Beerlula Beledweyne.